ururka Ahlusunna wal Jamaaca ayaa munaasabada si qurux badan loo soo agaasimay ku qabsaday Masjidul Munawwar oo ku yaala xeryaha qaxootiga Dadaab gaar ahaan xerada Ifo. Sheekh Wali Sheekh Maxamed oo ugu horeyn munaasabada daafuray ayaa waxa uu sawiray halgankii diinta iyo waliba dadaalkii ay saxaabada soo mareen. يعني حقيسا كجيسو صحابة عالم الله بر مدينة مركو نبي يمد طوال كسر مدينة لجوجي أو مضوا أي بلطي أو نبي صحابة دي أي تربتين أو مشرق المغرب دين الإسلام كا يعني لقصوا قال بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا مركي السداس أيوه دين الإسلام كان مسوقين باللامين معلم كان هو خير بدنا الدنيا. dhanka kale to Sheekh Shukri Aidiid ayaa ka hadlay intii ay munaasabada socotay. laba aqal raayna ku soo gaabiyo Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu sida Ibrahim Dunya uu sheegay kitaabkiisa al-awliya waxa uu leeyahay Abdullah ibn Abbas ayaa ku yiri saddex من كنا فيه استحق ولاية الله. xuska munaasabada ziyaaratul akhwaan oo sanadkiiba mar la qabto ayaa Masjidul Munawwar sanadkan lagu qabtay waxaana munaasabada ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan culimo u diin iyo waliba dhalinyarada qaybaheeda kala duwan. صلاة الله على أحمد حتى تحرير الصدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات. Sheekh Maxamuud Tawakkal oo kamid ah culimada soo qaban qaabisay xuska sanadkan ee Akhwaalul Muslimiin ayaa ka warbixiyay qaabka munaasabada loo soo agaasimay iyo waliba ahmiyadda ay u leedahay dhamaanba muslimiinta. bil caalamiin sallallahu ala sayyidina wa mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. insha Allah magacaygu waa Sheekh Maxamuud Tawakkal Xasan Maxamed. munaasabada halkan sanad walba waan ku dhignaa bishan seke markii la gaaro oo kale ayaan ziyaaratul ikhwaan ka dhignaa oo dhammaan aynu ku xuseyno uguna duceynayno walaalihii muuminiinta iyo muuminaadka dhammaantood wali insi wali jinni dhammaan aynu ku xuseyno. masjidka kale to Sheekh Maxamuud Tawakkal ayaa mudarris ka ah muddo ka badan 10 sano Masjidul Munawwar oo culumta diiniga ah lagu barto sidoo kale tana waxa uu bulshada ku booriyay in ay ka faa'iideystaan culumta diiniga ah ee lagu barto Masjidul Munawwar. masjidkan Munawwar muddo 10 sano ayaan hadda mudarris ka ahay oo culumta noocyada kala duwan ku akhrinaa tafsiirka Quraanka Kariimka ayaa noogu dhamaaday axaadiistii hadda noo socoto صالح بان نoo dhamaaday fiqhigi baan wadnaa tasawufkii aqeedadii siiradii naxwihii sarfigii fiqhigii culumtii oo dhan ayaan halkan ku ugu dambeyntii munaasabada ayaa ku soo dhamaatay jawi nabadeed oo looga dheehani karay habsamida loo soo abaabulay.